Odhaahyooyinkii taariikhda galay ee qoraagii caanka ahaa Mark Twain. Haddii aad barato ismoogaysiinta, waxaad xalisay kala badh dhibaatooyinkaaga. Labada maalin ee ugu muhiimsan noloshaada waa maalintaad dhalatay iyo maalintaad ogaatay sababta. Noloshu kuma siinayso wax walbo aad jeceshahay, balse qanacsanaanta ayaa kaa dhigaysa inaad jeclaato wax walbo aad haysato. Cabsidu ma hakiso dhimashada, balse waxay hor istaagtaa nolosha. Feejignaan muuji marka aad akhrinayso buugaagta caafimaadka, waxaad u dhiman kartaa qalad qoraaleed yar. Haddii aad rabto inaad ku noolaato nolol farxad leh, ku xidh hadaf iyo yool, ha ku xidhin dadka. Si aad u hesho farxad dhammaystiran, waa inaad hesho qof aad la qaybsato. Naxariistu waa luuqadda dhagoolku maqli karo, indhoolkuna arki karo. Lacag la'aantu waa xididka xumaanta oo dhan. Haddii aad runta sheegayso, uma baahnid inaad wax xasuusato. U noqo dalkaaga daacad mar waliba. U noqo daacad dowladda marka ay mudan tahay. Waxaan bartay inaan ku kalsoonaan midka iiga sheekeeya dadka kale, sababtoo ah maalin uun aniga ayuu iga sheekayn doonaa. Qofka wuu noqon karaa maamulaha waxa uu samaynayo, balse ma noqon karo maamulaha waxa uu dareemayo. Beentu waxay wareegi kartaa kala bar dunida, halka weli runtu kabaheeda xiranayso. Si wanaagsan u daryeel sumcadaada, waayo waa ay kaa cimri dheeraan doontaa. Si aanad u dhicin, ha ku tiirin dhabarkaaga cidna. Caloosha madhan, jeebabka faaruqa ah, iyo qalbiga dhaawacani waxay ku bari karaan casharrada ugu muhiimsan noloshaada. Haddii aad leedahay rajo, wax waliba waa suuragal. Micnaha saxda ah ee waalida waa inaad hal arrin dhowr jeer ku celceliso, kana sugta natiijo kala duwan. Qofka aan qaldamin, tijaabo ma samayn weligii. Haddii aanad akhrin wargeysyada, waxaad tahay war la'aan. Haddiise aad akhriso, warar qaldan ayaa laguu tabiyey. Midka guulaystaa saaxiibadiisu waa badan yihiin, balse midka guuldarraystaa saaxiibadiisu waa dhab. Noloshu marka ay kuu hibayso qof farxaddaada ka taliya, ilaalso qofkaas. Dadka qaar waa sida taariikhda, sooma laabtaan, lamana ilaabo. Qofkii damcaa wax walba, wuu lumiyaa wax walba. Furaha guuldarradu waa inaad isku daydo qancinta dadka dhammaantood. Ha aaminin gabadha kuu sheegta inaysan masayrin. Ha weydiin gabadha 3 arrin, gabadh kale oo ka qurux badan ayada, da'deeda iyo nolosheedii hore. Wax walba oo xanaaq ku bilaabmaa, ceeb ayay ku dhammaadaan. Maadaama aad ku guuldarraysatay inaad u diyaar garowdo guusha, waxaad diyaar u tahay guuldarrada.